madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kula la qaatay musharaxiin la tartamaya waqtigii doorashada ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo hoggaanka sare xisbigaasi waxa madaxweynaha ku weynayay kulankaasi uu la qaatay xisbiga mucaaradka wadani hoggaankiisa sare madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Xuseen Axmed Caydiid iyo sidoo kale madaxweyne Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyagoo faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulankani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ummadana fariin u dirayna ay tahay inaan meeshii sidii xisbiga waddan maxaan ku raahdaa doorashadii go'aankii hore uu ka qaatay halkeedii ay taagan yahay oo maanta isla maanta taladu ay tahay aan waxba laga noqonayn oo xisbiguna sidaa horay ma go'aankii uu gaaray uu joogo imikana uu doorkiisii mucaariyeed uu qaadan karo xukuumaduna ay u yeelan lahayd iyadoo yara fulinteedii yeelanaysa dulqaadkii laga rabay inay ma garanaysaa unay u yeelato maxaan ku raahdaa doorka mucaariyeed ay yara dulqaadkeedii u yeelato iyo xagga saxaafadda lafteedooda aan ka hadlo inay saxaafadda dulqaad u yeelato mucaaradka dulqaad u yeelato intii ku jirta arrimaha iyaga arrimaha runtii oo si wanaagsan isugu afkaranay qarankana iyo mashaakilada taaganna aan iska waraysanay guud ahaan wixii aan isku dhaanay isaga waraysanay intaas uu ku koobnaa waana kulankii koowaad in laga wada shaqeeyo arrimaha qarannimo looga wada shaqeeyo runtii waa laga ballamay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin runtii maanta waa maalin aad u weyn maalin farxad weeyaan saad arkaysaan waxaan isku yimid madaxweynihii dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku-xigeenka aniga xisbiga iyo xisbigii wadani oo ah xisbigii runtii labaad ugu awoodda badnaa dalka sida uu sheegay Xuseen Axmed Caydiid waxaan ku heshiinay in maadaama xanaftii doorashada ay naga dhammaatay dantii qaranka inaga dhexaysa laga wada shaqeeyo dalku waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka iyo kolba ciddii muxaafidii waxa waa institution ama hay'ado iskaabiya weeyaan waxaan ku heshiinay in qaranka hawlo badan oo loo yaalo runtii waan ku ekeenoon doorashada madaxtooyada in si wada jira laga wada shaqeyno runtiina ay noqdaan muraayadda aan isku daawanayno oo ah kuwa la toosinaya oo kolba cid hawlo haysa xisbiga mucaaradku waxa mar walba yahay muraayadda la isku eegayo ee mar walba taaya tilmaamo wixii shaqadaasi ka qalloocsan toosinaya waxaan ku heshiinay in si qarannimo oo wax maanta dhisida oo mucaaradad maanta wax dhista ah maanta u shaqeeyay iyaguna inay ballan qaadeen annaguna inaan dulqaad u yeelano inaan qaadano dhaliilaha loo soo jeediyay ama toosinta mucaaraddu maaha wax dumis kelmadda mucaaradiyada in dadku fahmaan qalad maaha waxay qaateen inay dalkii ay dhisaan ay toosiyaan oo xukuumaddii maanta dhisantay cusbeyd wixii dhaliila ama shaqo maartay ka leexda ay ku toosiyaan annaguna waxaan qaadayaan dulqaad u yeelano toosintooda iyo tilmaantooda runtii Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.